horseed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز لي عشرانتين امتحانها ها أي نوجا بحي دكتور horseed وعشر حسابه إنه كسي وضع إنه هالكيو إنه شوي عشرانتي هراء إنه كسي دبضر إنه maanta bishii labadii bishii shanaad 2020 tahay maadada xisaabta fasalka 8 casharkii trigonometriga inoo soo socday waxaynu soo gaarnay qaybta la yiraahdo saamiyada trigonometriga waxaynu ku baranaynaa saddex shay waxa la yiraahdo sin iyo mid kale la yiraahdo cos iyo mid kale la yiraahdo tan saddexdaas ayaynu ku baranaynaa saddexdana hadaba maxay yihiin sin iyo cos iyo tan sin iyo cos iyo tan dugsiga hoose marka joogto fahankooda waxa laga yaabaa sida loo shaqeeyo inay ku fududahay laakiin fahankoodu inuu kugu yara adkaado sababtuna waxa weeyaan waxay ka waramayaan signaliska ka waramayaan markaas wax sawiraan nature bay ka waramayaan signalku haduu noocaan noqdo ama sawirkiisu noocaan noqdo waa kii sinka haduu noocaan noqdo waa kii coska haduu noocaan noqdona waa kii tangentka waliba saddexdan oo kaliya tamaha saddex kalena way soo raacaan dugsiga sare marka la joogo marka hadii la yiraahdo inka dugsiga hoose markaan joogna aynu barano bar sida looga shaqeeyo laakiin waxay la xiriiraan saamiyada trigonometriga sinka iyo coskiyo waxay la xiriiraan saddexagalku marka uu yahay saddexagal quman ama right angular triangle markuu yahay hadaba dhinaca ugu dheer waxaan u bixinaynaa shakaal ama xarafka c baynu u bixinaynaa dhinaca ugu gaabanna waxaynu bixinaynaa ee mar walba xagasheena ka soo horjeedana waxaynu ugu bixinaynaa marmarka qaar kama soo horjeedi karo marmarka qaar ba xagashu xaggan imanaysa xaggan uu noqonayaa ka soo horjeedaha ama horjeedaha laakiin mar walba keena xagasha ka soo horjeedana waxaynu u bixinaynaa horjeede waxaynu u bixinaynaa xarafka b kan kale ee soo haray deriska la yiraahdo ee xagasheena la dhinaca ah marka loo mar walba xagasheena dhinaca taalo la dhinaca ah marka ka dheer laga reebana waxaynu u bixinaynaa sidaynu horeba ugu soo bixinay casharkii ka horeeyay ee aynu ku eegnay aragtida Pythagoras inta markaynu eegno sinku hadaba muxuu yahay sin af Soomaali waa sidan laakiin sin saasa loo soo gaabay loo qoraa sin marka waxaynu odhanaynaa sinku waxa weeyaan mar walba horjeedaha maxaa lagu helaa ama muxuu yahay qaacido ahaan horjeedaha oo loo qaybiyay shakaalka horjeedaha oo loo qaybiyay shakaalka ama aan idhaahdo horjeedaha xarafkee baynu u qaadanay xarafka b oo loo qaybiyay shakaalka oo aynu u qaadanay xarafka c intaas uu sinku noqonaya coskuna wuxuu noqonayaa isagoo loo soo gaabiyay cos loo soo gaabiyo cos ama cosine af Soomaali wuxuu noqonayaa isaguna deriska oo aynu u qaadanay xarafka a oo loo qaybiyay shakaalka xarafka c intaas uu isaguna noqonaya qaacidadiisu markaa waa hadii markaa horjeedaha iyo shakaalka la isku qaybiyo waa sin hadii deriska iyo shakaalka la isku qaybiyana waa cosine tangentku waa maxay tangentku waxa weeyaan horjeedaha oo aynu u qaadanay b oo loo qaybiyay deriska loo qaybiyay marka tangentkuna waa maxay waa horjeedaha oo loo qaybiyay deriska saddexdaasi iyagu waa saddexda qaacidooyinkoodana saasaad igu haynaysaa intaasi iyagu halkaas ay inoo oolaysaa deedna intaas waa inta aynu halkaynu ka duulayno aynu ka dhaqaaqayno weeyaan su'aalaheena inta markaynu helo waxaynu u imanaynaa su'aasha koobaad raadi saamiyada trigonometriga ee xagasha fiiqan ee b imka xagal leeyno qorino halka waxa lagu qoray theta waxaan yar waxa la theta waxayna inoo tilmaantaa xagasha mar walbana waxa dul yaala xagga tusaalaha labaad baynu ku arkaynaa waxa yaro la yiraahdo degree ayaa qiimaheeda dul yaala marka theta la yiraahdo haddaan iyada meesha lagu qorin xagasha waa in halkan lagu tilmaamo hadalka dhexdiisa marka xagasha b baa leeynagu yiri waa xagashaas loo jeedaa xagasha b baa ayaa marka aynu ka tilmaan qaadanaynayo haddaan xagasha lagu sheegin ma garanaysid keebaa horjeedihi iyo keebaa laakiin mar walba ka dheer waxa weeyaan isagu waxa weeyaan shakaalkii laakiin labadan kala isaga ka khaldamaya deriska iyo horjeedaha marka waxa la igu yiri xagasha b marka xagasha haday tahay horjeedaheedu waxa weeyaan 3 kan kalena waxa weeyaan deriskii shakaalkana waa kan hadaba si aynu soo saaro saamiyada trigonometriga waa inaynu marka hore shakaalka raadino shakaalka si aynu ku raadinayna saddexagal quman baynu haysanahay hadda saddexagalka laba dhinac haysto dhinac ka maqan yahay aragtidii Pythagoras baynu ku raadinayna hay laba jibaaran oo loo geey b laba jibaaran taas Pythagoras sheegay hadaba labadan qiimo ka ugu yar waxa weeyaan eedeeni waa ka ugu yar eedeeni marka waxaan haysanaa 3 b dina waxaan haysanaa
afar oo laba jibaare siidina way naga maqan tahay hay siido laba jibaare waxa ku iman tahay tan laba jeer isku dhufaa 9 tan laba jeer isku dhufaa 16 hay sii laba jibaare marka maxay noo la mid tahay labada hadda isku geeso xayaan 25 siido marka maxay noo la mid tahay xaggan xididkaad ka saaraysaa laba jibaarka xaggan xidid laba jibaarka ka saaraysaa laba jibaarka iyo waxa isla baxaya xidid laba jibaarka siido marka waxay noo la mid tahay 5 bay noo la mid tahay siido waynu soo helay marka aynu raadino saamiyada trigonometriga aynu nahno sin xagashii la inoo diray teebay ahayd b aynu markaan nahno sin b muxuu la mid yahay cos b na muxuu la mid yahay tan b na muxuu la mid yahay ilaan weynagii nidhi intan baa loo soo gaabiyay halkii cosine iyo lagu qori jiray af Soomaaliyeed oo qori kartaa cosine iyo cosine kuwaan oo qori kartaa soo muxuu sin ku ahaa wuxuu ahaa horjeedaha imika waxaan soo helay shakaalkeena 5 miyaan ahayn waa sidaas haye maxaynu hadaba sin ku muxuu ahaa qaaciidadeena horjeedaha oo b ah oo loo qaybiyo shakaalka horjeedaheena waa imisa waa 3 shakaalka la xagashu ka soo horjeedaa horjeedaheena waa 3 shakaalkuna waa imisa 5 waynaga soo helay qiimihii sin-ka qiimaha cos-kana maxaa lagu heli jiray waxa lagu heli jiray deriska oo loo qaybiyay shakaalka deriska oo a oo loo qaybiyo shakaalka c marka deriskeeni me waa 4 shakaalkina waxa weeyaan 5 way taa markaan helay tangent-kuna inuu noqonaya tangent-kuna wuxuu noqonayaa horjeedaha oo b ah iyo deriska oo a ah horjeedaha oo b ah oo 3 iyo deriska oo imisa ah 4 isagana waynaga soo helay saddexdeena saasaynu ku helay inta markaynu helay halkaas iskaga joojinaysaa waana isu sii qaybin kartaa 0.8 0.6 iyo xasa soo saari kartaa tan kale hadaynu nimaadno tusaalaha labaad wuxuu in leeyahay raadi qiimaha ay yeelanayaan saamiyada trigonometriga marka xagashu tahay 30 degree xagashu markay 30 degree tahay saamiyada ay yeelanayaan siyaabo kala duwan baa lagu weydiinaya imka tusaalaheena koowaad waxa la weydiiyay iyadoo waxa la weydiiyay iyadoo aynu haysano saddex xagalka qiimayaal dhinaciisa lagu qoray oo la inoo diray saamiyada trigonometriga imka laakiin xagal baa la siiyay hadda aragto 30 degree lagu siiyay 40 degree waxyaabaha noocaas waxa lagu siiyay theta xagashi theta oo 30 degree aad haysataa hadaba waxaan isticmaalayaa halka u fiirsada arday waxaan isticmaalayaa gacantayda ayaan sidaan odhanaya halkaasaan dhigayaa gacanta bidixdaan isticmaalayaa hay taas saasaan leeyahay gacantayda sawiraya sidii hablaayar markay xinnaha ay sawirayaan ay u sawiri gacanta ugu sawiri jireen soo gacantaydii baan ku sawirayaa waayahay gacantayda markay taa tahay suulka mar walba waxaan u qaadanaynaa 0 degree ta ku xigtana waxaan u qaadanaynaa 30 degree ta ku xigtana 45 degree ta ku xigtana waxaan u qaadanaynaa 60 degree ta ku xigtana waxaan u qaadanaynaa 90 degree xagga mar walba waxa ka yimaada qiimayaasha sin-ka xaggaana mar walba waxa xagga kale ka yimaada qiimayaasha cos-ka intaas aynu haysanaa gacantaas aynu isticmaalayna qof waliba waa inuu xifdisnaado taas waxa weeyaan 0 30 45 60 iyo 90 inta waa xifdisan tahay haddaba waxaan doonayaa sin inaan soo saaro sin 30 inaan soo saaro halkii tiitada halkaas sin-ka waxaan raacinayaa iminka xagashii leesiyo 30 sin 30 baan doonayaa inaan soo saaro si aan u soo saaro sin-ku xaggan buu ka iman jiray qaaciidadan isticmaalaya waxa weeyaan sin-ka iyo cos-ka tiitadana aan u dhaxaysiiyo mar walba waxa lagu helayaa xarafka xa oo u taagan hadba inta faraha ee ka hooseeya ama ka sareeya oo loo qaybiyo laba qaacidadaas isticmaalaya hay hadaba sin teedi muxuu noqonayaa xaggan hoose hadaad ka timaado 30 waa kan sin-kina ma aanu xagga sare u socon jirin hay imisa farood ba ka hooseeya ee 30 imisa farta ay ku qoran tahay 30 imisa farood ba ka hooseeya hal far halkaas ku bedelaysaa halkii xaad ay laxaad wuxuu taagantahay mar walba inta farood ee meesha yaalay oo loo qaybiyo laba haye maxay noqoni sin teedi marka wuxuu kuula mid yahay xididka hal markaad ka saarto xididka imisu noqonaya hal oo loo qaybiyo laba soo waa tan sin teedi waa kan saasaad ku soo saari haye cos teedina imisu kuula mid yahay cos teedina wuxuu kuula mid yahay haye intan xaad halkan soo qaado iyo labada haye cos teedi marka wuxuu kuula mid yahay xaadii iminka cos teedigi teedigu waa kan
teedhigu wada leeyihiin sin iyo cos saddex xaggan ka timaadii haddii kaleba hay farta marka istaagto imisa cosku xaggaas ka iman jiray imisa farood baa xaggan ka xiga taa aan taaganahay soddonku ku qoran yahay waxa ka xiga saddex farood soo saddex bay xaadi u taagantahay halkii xaadi waxaad ku bedelaysaa saddex loo qaybiyo laba saddex xididka kama baxdo soo saasi kaga jawaaban tahay tan teedhi imisoo noqonaya haddaba tan teedhi isaguna wuxuu noqonayaa xaa xididka ku jirta oo loo qaybiyay laba soo tan teedhi wuxuu kuula mid yahay tan teedhi baan doonayaa taanku halkan isaga inooguma qorna laakiin tangentku mar walba wuxuu la mid yahay sin-ka iyo cos-ko la isu qaybiyey sin teedhi iyo cos teedhi la isu qaybiyey labadoodii markaad soo saarato baad isu qaybinaysaa hay sin teedhi misuu ahaa wuxuu ahaa hal loo qaybiyey laba cos teedhina misuu ahaa saddex xididka ku jirto loo qaybiyey laba labadaa hoose iyo labadaa hoose way isla baxayaan jajab ahaan markaad eegto marka waxa soo hadhaya xaggaa sare hal xaggan waxa ku soo hadhaya saddex xididka ku jirta soo tanteedhigana saasaad ku soo saaraysaa haddii la yiraahdo tusaalaha ku sii xigeen insha Allah eegi doona casharkeenu markaa waxa weeyaan waa ka casharkeena aad halka ka wada arkaysaan oo sida fiican uga shaqaysan yahay gacantana saasaad ku xiftay saad ku ilaalinaysaa hadba qiimayaasha ku qoran casharka ku xigeen inta soo iman doono waxaan idin leeyahay ardayda fasalka 8 Ramadaan kariim horseed schools